dowladda dalka Kenya ayaa si rasmi ah u beenisay eedaamo ay u jeedisay dowladda federaalka Soomaaliya oo ay ku sheegtay in dowladda Kenya ay faragelin bareer ah oo qawan ku hayso arrimaha gudaha dalkeeda. war qoraal ah oo ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya ayaa lagu sheegay in aysan sal iyo raatoon lahayn eedeymaha uga imaanaya Soomaaliya ee ay u gudbisay qaramada midoobay sida joogtada ah ay uga baahinayso qaybaha kala duwan ee warbaahinta. qoraalka Kenya oo la gaarsiiyay safaaradda Soomaaliya ay ku leedahay Nairobi ayaa daba socda cabasho iyo eedeyn uu qaramada midoobay u gudbiyay danjiraha dowladda Soomaaliya ee qaramada midoobay Ambassador Abuukar Daahir Cismaan oo sheegay in Kenya ay faragelin iyo xasilooni darro ku hayso arrimaha gudaha, amniga iyo siyaasadda ee Soomaaliya. Kenya oo ka duuleysa eedeymaha Soomaaliya ayaa qoraalkeeda ku sheegtay in aysan aqbali karin waxa ay ugu yartay eedeymaha sharci darrada ee Soomaaliya ay ku sheegtay in Kenya ay faragelin ku hayso arrimaha gudaha dalkeeda. Kenya ayaa eedeymahaasi ku macnaysay kuwa been abuur ah oo Soomaaliya ku doonayso inay qiil uga dhigato tallaabooyin sharci darro ah oo ay ka wado gudaha dalkeeda loona baahan yahay in ay ka tanaasusho si hufan ugu adeegto dadkeeda. ugu dambeynna dowladda Kenya ayaa sheegtay in ay ogtahay wax ay ugu yartay olole sharci darro ah oo uga imaanaya Soomaaliya haddana ay isxakameynayso maadaama ay tiri Soomaaliya ay ku jirto xaalad kala guur ah. danjiraha dowladda Soomaaliya u fadhiya qaramada midoobay ayaa khudbadiisa golaha ammaanka ku sheegay in Soomaaliya ay adeegsan doonto qodobka 35 ee xeerka qaramada midoobay kaas oo ogolaanaya in ay si rasmi ah u gudbiso dacwad caalami ah oo ka dhan ah dowladda Kenya maadaama ay yiri ay ka dhaga adeegtay baaqyo badan oo diblomaasiyadeed oo ay soo bandhigtay Soomaaliya. qodobka 35 ayaa dowlad kasta awood u siinaya in ay golaha ammaanka hordhigi karto arrin kasta oo ay u aragto in ay halis ku tahay nabadgelyada iyo xasiloonida dunida. waxa in faragelinta cad ee Kenya ay xadgudub ku tahay madaxbannaanida dhulka, xuduudaha, siyaasadda iyo midnimada Soomaaliya ayna halis gelinayso horumarka Soomaaliya ee dhibaatooyinka badan ay ka soo mareen dowladda iyo shacbiga Soomaaliyeed oo kaashanaya beesha caalamka. ugu dambeynna danjiraha ayaa dowladda Kenya ugu baaqay in ay degdeg faraha uga baxdo arrimaha Soomaaliya haddii kale Soomaaliya ay qaadayso talaabo kasta oo ay ku difaacanayso madaxbannaanida iyo midnimada maadaama ay yiri Kenya ay halis gelinayso nabadgelyada iyo xasiloonida gobolka gaar ahaan Soomaaliya.